واتهانيني سبسكريتيغا waxaan kusoo guda jirnay sida u gareynta virtual lab muuqaalkeenan waxaan ku dhamaystiri doonaa wixii configurations ahaa ee horsanaa waxaan sidoo kale ku jaabin doonaa qaabkan isticmaali karno virtual lab kan okay ugu horeyn soo fur pfSense marka si dhamaystiran kugu soo baxana waxaad sidoo kale soo furtaa Kali Linux okay inta soo socdo aynu soo jeegarayno in qalabadii kale ayaan soo abgareynay ay dhamaantood ku jiraan network pfSense okay Kali markuu inoo soo baxo soo gal browserka waxaad gelisaa IP address-kan oo ah web interface-ka pfSense username-ku waa admin password-kuna waa pfSense next taabo kadibna raac tallaabooyinkan aynu ku hagaajinayno shaqada pfSense ugu horeyn hostname-ka u daa kan default-ka ah halkana magaca inooga bedel oo inoogu qor local domain DNS server-kana waxaynu ka isticmaalinaa Google oo kan hore ee primary-ga waxaad ku qoraysaa 8.8.8.8 secondary-gana sida Google ay ka isticmaalayna waxaad ku qoraysaa 8.8.4.4 waa DNS server public ah kaasoo la isku halayn karo halkana check ka qaad waxaynu sheegaysaa inaynu isticmaalno DNS-ka shirkadda aynu internet-ka isticmaalayno next taabo time server-ka inta hore ka saar halkana geli time zone-kaaga next taabo halkana DHCP-ga u daa next taabo password usoo samee kadibna done reload taabo waa kan inoo soo baxay haddaad rabto inaad firewall-ka wax ka bedesho ama rabto inaad ku darsato shuruuc cusub halkan ayaad ka dooran kartaa halkan services taabo DHCP server sii dooro kadibna hubi in option-kani check yahay IP address range-gana waxaad nooga dhigtaa 100 ilaa 200 kadibna save taabo kadib apply change sii taabo si aanu isticmaalno waxyaabaha bedelnay intaas way inoo dhan tahay aynu soo kicino mid isolable username-ku iyo password-ku kuwan waxaynu eegaynaa IP address-kiisa okay waa kan IP address-kiisu soo gal terminalka Kali Linux kadibna waxaad biin garaysaa IP address-ka mid isolable waa kan oo waa on kadibna ay ku tijaabino nmap waxaad ku qortaa command-ski nmap ee hore soo barnay sida kan halka waxaa muuqata xogta mid exploitable ee protocolska iyo bootska furan okay maadaama mid exploitable yahay machine loogu talagalay in lagu practice gareeyo lagala dhigay mid aan systemkiisu adkayn ay isku dayna inaynu gudihiisa galno oo hagarayno ugu horreyn waxaan isticmaalnaa mid exploit si aanu helno vulnerabilities-kiisa ama guduleelada laga soo geli karo soo kici mid exploit waxaad ku qortaa search vs ftpd okay waa kan vulnerability-gan rabnay inaan isticmaalno intaas aynu ugu eegyahay muuqaalkeena maanta halkaas aynu kasii wadi doonaa isticmaalidda virtual lab-keenan wassalaamu calaykum